السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. koobkii adduun ee bilaabashadiisu ay noqotay mid ka duwan sidii la filayay. dabcan waxaan ka hadlaynaa dhacdooyinka laga diiwaangeliyay koobka adduunka ee hadda bilowga ah, sida guushii la yaabka lahayd ee xulka qaranka Sacuudiga iyo ficilkii ay sameeyeen xulka qaranka ee Jarmalka, taasoo guuldaro loogu daray. haddaba aan u guda galno muuqaalkeena maanta. ugu horeyn, Qatar waxay sameysay ficilo aad soo jiitay shucuubta Islaamka, sida in khamriga laga mamnuucay garoomada, taasoo ay aad uga soo horjeedsadeen reer galbeedku. balse ma ogtahay in wadamada Yurub qaarkood garoomada aan laga ogolayn in khamriga lagu iibiyo, haba uga horeeyaan Faransiiska, Spain iyo Portugal, taas oo ay macnaheedu tahay nagu ixtiraama dhaqankeena, annagana ma ixtiraamayno dhaqankiina. balse waxaa jawaab cad siiyey madaxweynaha FIFA. I think personally, if for 3 hours a day you cannot drink a beer, you will survive. sidaas la mid ah, Qatar ayaa mamnuucday calaamada lagu taageerayo khaniisiinta ama dadka isku jinsiga ah ee wax iska doona, taas oo had iyo jeer reer galbeedku u doodaan qolyahaas, haba uga horeeyaan Ingiriiska iyo Jarmalka, iyagoo xitaa looga digay inay sameeyaan ficilo ka dhan ah arrintaas. iyadoona FIFA ay sheegtay in calaamada One Love ee khaniisiinta lagu taageerayo in aan la isticmaali karin intuu koobku socdo, bal ciddii isticmaasha in talaabo ka dhan ah laga qaadi doono. sidaas la mid ah, ciyaartooyda soo xirtana jaalo la siin doono inta ciyaarta la baasin, lagana bixin doono. go'aankaas kadib ee FIFA ka soo baxay, xulka Ingiriiska ayaa shaaciyay inay jilba dhiganayaan kulanka ay la leeyihiin xulka Iran. dabcan arrintaas way sameeyeen. sidoo kale aan eegno guushii taariikhiga ahayd ee Sacuudiga ay kaga gaareen dhigooda Argentina. dabcan Argentina waxay haysteen rikoor ah inay soo badiyeen kulankaas ka hor 36 kulan ay ahaayeen kuwa unbeaten ah ama aan guuldareysan. balse qof kasta wuxuu aaminsanaa in Argentina ay guuleysanayso, sida taageerahan uu leeyahay in markii ay qaybta hore ciyaar soo dhamaatay waliba 1-0 uu ku farxay natiijadaas, isagoo ka baqayay inay ku dhamaato intaasi wax ka badan. taas beddelkeeda wixii uu arkay qaybta dambe ay ahaayeen wax isaguba uu la yaabay. kadib markii ay soo dhamaatay ciyaartaas, taageerayaasha Sacuudiga ayaa sameeyay dabaaldeg iyo hadallo ay ku jeexjeexayaan Messi oo ahaa Messi me, taasoo qabsatay dhammaan baraha bulshada. Messi barra! Yalla barra! Messi bueno! bal intaas kuma joojine, waxay sameeyeen dabaaldega ninka isla xifaaltamaan Messi ee Cristiano Ronaldo. sidoo kale ciyaaryahanka Yaasir Al-Shahrani oo dhaawac aad u culus u ka soo gaaray intii ciyaar socotay, waxaan alla uga baryeynaa inuu caafimaad degdeg ah u siiyo. ninkan waxaa lagu magacaabaa Abdulaziz bin Turki Al Faisal, waa wasiirka ciyaaraha ee dalka Sacuudiga. wuxuu sheegay inuu sugayo qof kor u kiciya la yaabka iyo wuxuu indhihiisa ku arkay ma uusan filaynin marnaba, isagoona guushaas ay ku noqotay fajac iyo makaag. guushan Sacuudiga kii loogama dabaaldegin, balse Carab oo dhan ayaa u dabaaldegtay. markaan iyo arrinta lagu qoslo ay sameeyeen xulka qaranka Germany. dabcan xulka qaranka Jarmalka wuxuu ka mid ahaa wadamada u sharxan ku guuleyska koobka adduunka, maadaama ay haystaan ciyaartooy aad u xirfad badan. balse arrinta iyo dhaleecaynta ay kala kulmeen taageerayaashooda ayaa noqotay mid la yaab leh, maadaama ay galeen sawir ay afka haystaan, taasoo ay xitaa ay soo dhigeen barahooda bulshada, ayna ku leeyihiin inay ka xun yihiin in loo diido inay xirtaan calaamada One Love. balse guuldaro ayaa dhabarka loo saaray, taasoo keentay in taageerayaasha ay canaan kala dul dhacaan ciyaartooyda iyo weliba xulka qaranka. haddaba fariimaha loo soo qoray waxaa ka mid ah sida shakhsigan uu soo qoray. wuxuu leeyahay, waxaa idin weydiisanay inaad halkaas tagtaan oo aad kubadda dheshaan, balse ma idin samayn. ciyaarta ayaa ku soo dhamaatay kubadda cagta oo 2 gool leh iyo siyaasadda oo 1 gool leh, taasoo loo jeeday in Japan ay tahay ciyaartooyda halka Jarmalkana uu yahay siyaasadda. qofkan ayaa wuxuu leeyahay Jarmalku inuu guuldareysto wuu qalmay, maadaama ay u yimaadeen inay u ciyaaraan siyaasad ee ma aysan u imaan inay ciyaaraan kubadda cagta. kabtanka xulka qaranka Belgium ee Eden Hazard ayaa mar la weydiiyay arrinta Jarmalka, ayuu ku jawaabay, dabcan waa laga badiyay, waxaa fiicnaan lahayd inaysan sameyn oo ay guuleystaan. halkan waxaan u joognaa inaan ciyaarno kubadda cagta, balse anigu uma joogo inaan fariin siyaasadeed diro. waxaa jira dad arrintaas ku habboon. waxaan doonaynaa inaan kubadda cagta diiradda saarno,
dabcan waxaa iska cad laba wajiilnimada reer galbeedka iyo waxyaalaha ka dhanka ah ee diinta islaamka ay sameynayaan markasta ha ahaato inay markasta su'aal ka keenaan sababta loogu qabtay koobka adduunka waddankan islaamiga ahi. dabcan weli koobku waa bilow waxaana mar walba soo baxaya wejiyada qarsoon ee reer galbeedka iyo nacaybka ay u qabaan diinta islaamka. halkaas ay muuqaalkeenu ku joogaa. wabillaahi tawfiiq.